howlgal ay taliska ciidanka booliiska degmada Caldibir ee bariga gobolka Mudug ay fuliyeen ayaa gacanta waxay ku soo dhigeen dad ku howlanaa xaalufka deegaanka sidaas kale waxay burburiyeen magaalada loo aasay in qayb ka noqdaan xaalufka deegaanka iyo sidoo kale ayna hoy u ahayd burcad dhuleedka ku howlanaa xaalufinta deegaanka dhanbeel ee bariga gobolka Mudug ee bartamaha dalka amulka magaalada Caldibir ee bariga gobolka Mudug oo kaashanaya taliska booliiska Soomaaliyeed ee ka howlgala magaaladaas ayaa fuliyay howlgal lagula dirirayo burcad dhuleedka ku howlanaa xaalufinta deegaankaymeedka dhanbeel ee bariga gobolka Mudug ee bartamaha dalka howlgalkan sida wadajirka maamulka iyo booliisku u fuliyeen ayaa inta u socday waxa lagu burburiyay goobo saldhigyo u ahaa burcad dhuleedka ku howlanaa xaalufinta deegaanka iyo sidoo kale jarista dhirta kuwaasoo ku dhumaaleysanayay deegaankaymeedka dhanbeel ee gobolkan sidoo kale booliiska ayaa burburiyay dhuxul ay si sharci darro ah u shideen iyo geedihii ay jareen burcad dhuleedka ku howlanaa xaalufinta deegaanka taliyaha booliiska magaalada Caldibir ee bariga gobolka Mudug oo warbaahinta la hadlay kadib howlgal saacado qaatay oo wadajir ay fuliyeen maamulka magaaladaas iyo sidoo kale taliska booliiska ayaa tilmaamay in howlgalkan uu ahaa mid guuleystay oo najaxay inta howlgalka socdana lagu burburiyay goobo saldhigyo u ahaa oo ay ku dhumaaleysan jireen burcad dhuleedka ku howlanaa xaalufinta deegaankaymeedka dhanbeel sidaas oo kalena ay dhammaan burburiyeen dhuxul ay si sharci darro ah u gubayeen burcad dhuleedkan meeshaan saakay calsaareer waxa uu nimid dhuxul la shiday haddana aan ku baadi goobno ku jirno haddana wataa sulcaysa waxaan leeyahay dadka ka waantooba 6 bilood 7 bilood waana wadnay waxa lahayn waa iska daa hadda maantay waxa ugu dambeystii isla qaateen guddigii iyo gudoomiyihii iyo deegaankii iyo xubnihii iyo alla intii gudoomiyaha wax isla qaateen in gaariga lagu gubo ninkana la xiro waxaan leeyahay walaalayaal maanta ka bacdi inta la shidaa laga taga suuragal ahaanayso ninka la qabanaya ninka shida la qabanaya waa la xiraya xabsa la dhigaya saacado markuu dhameystana dawladda u gudbinayna hadda laga waantoobin intaas intii korreey dad ma qaban jirin wuxuushan wala gubi jirnay waxa waa lagu waana qaado way ninka ku qoslaya halka taga baxo meel kale ka shida waxa maanta laga bilaabo saacada laga bilaabo ninka oo taas ugu horeeyo ninka dhuxusha shidaan daba kacayna yaa shidaan leenahay yaa laan soo qaadan leenahay yaa dab ku daaraan leenahay waxa alla wixii aan raadkaas aan ku helana sharciga marsiinana waa fujirayna waxa leenahay gaadiidkana ka waantoobeen dadka baarka u karana meelaha u jooga ka waantoobeen hadda meeshaas ugu sokaysa oo aan joogno waxa raabuushkaas ila mid u qabano sidaas kale ciidamadu waxay burburiyeen tuulada loo aasay in dabcan gulug ay ka dhigtaan dadka ku howlanaa burcad dhuleedka xaalufka baan ku hayo gobolka Mudug guud ahaan waxa xagga ku burburay oo ku basbeelaya si ay u jeedin dabcan tuulooyinkii ay halkan ka aaseen dadka ku howlanaa xaalufka deegaanka qayb ka mid ah howlgallada lagu xaqiijinayo badbaadada deegaanka laguna hortagayo xaalufka deegaanka oo horay amar kaga soo baxay taliska booliiska qaybta gobolka Mudug ee Soomaaliyeed iyo sidoo kale maamulka galmudug ee ku aadanaa ilaalinta deegaanka badqabka nafta iyo maalka shacabka ku nool bariga gobolka Mudug gaasha calaxaashay baahinta qaranka bariga Mudug